hortiisa hadduu ilaahay yidhaahdo sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa dastuurka la bedelay ee sida sharci darrada loo bedelay, dastuurka la bedelay ee shakhsi loo bedelay, dastuurka la bedelay ee Ismaaciil Cumar Geelle loo bedelay si uu sii joogo talada ayaan kaga hadli doonaa kuna muujin doonaa inaan diidanahay kana soo horjeedna hadduu ilaahay yidhaahdo. waayo qarankeenu waxa uu u baahan yahay madaxweynihii saddexaad in la doorto, waayo waxaan ognahay muddo 50 sannadood inay isdaba mareen xasan guuleed abtidoon allah u naxariistay iyo Ismaaciil Cumar Geelle. waxaa la joogaa waqtigii shacabka reer Djibouti ay dooran lahaayeen madaxweynahoogii saddexaad hadduu ilaahay yidhaahdo insha allah. waxaan halkan fariin uga diraynaa dhammaan dadweynaha reer Djibouti meel kastay joogaan, xaafad walba, hooyo iyo aabbo, dhalinyar iyo cid walba. waxaan ka leenahay si baaxad leh uga soo qayb gala banaanbaxa nabadaysan ee aan ogeysiinay dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha. sidoo kale waxaan fariin u diraynaa bulshada rayidka ayaan fariin u diraynaa. waxaa kaloo aan u diraynaa aqoonyahanada iyo dadkeena oo dhan noocay doonaan ha noqdaan. sidoo kale xisbiyada mucaaradka iyakana waxaan leenahay oo fariinteedu waxa ay tahay inaad ka soo qayb gashaan banaanbaxa nabadaysan ee ka qarsoomi doona guriga baarlamaanka hortiisa hadduu ilaahay yidhaahdo, si innakoo mida oo walaala aan uga wada hortegno dastuurka la bedelayo una cabirno dhibaatooyinka bulshadeenna iyo dadkeennaba haysta hadduu ilaahay yidhaahdo insha allahu taala.